dhammaantiin waan salaamayaa qofkasta magaciisa iyo masabkiisa wasiirada ugu horeeyaan maanta munaasabadda 12 August maalinta dhalinyarada adduunka iska kaashadeen soo qabanqaabisay hay'adda Afayoko iyadoo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha aad iyo aad ugu faraxsanahay munaasabaddan qiimaha leh dhammaanteen inaynu isugu nimaadno wasiirkii oo ku maqan shirka nabadaynta Ceergaabo iyadoo ay ahayd runtii wasiirada inuu mid afkooda ku hadlo haddana kulli wada hadal aniga la soo hadlay baan rabaa inaan shirka aan isaga wasaaradda matalaya aan halkan kelmadiis ka idhaahdo sidaynu wada ognahay dhalinyartu boqolkiiba 70 ee mujtamaceena iyo bulshadeena ka tahay inagoo dalkeenu inuu yahay dal aan la aqoonsanayn shaqo abuur badan aan jirin aanay cid badan oo maanta maalgelin dalkeena ku samaynaysa aanay jirin oo investors oo inoo yimaada taasi runtii waxay keentaa badan yihiin dadka waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuulaadka ka soo baxaya qodobka maanta ugu caqabada ugu weyn ee maanta bulshadeena mujtamaceena haystay dhalinyarteedu waa xagga shaqo la'aanta oo maanta ka dambaysa iyadoo laga koritaanka dhalinyartu aad u koreeya iyagoo gaaraya daadii iskuulaadka iyo jaamacadaha laga soo baxayo iyadoo intaas oo jirto xukuumadii kala dambeeyay kulmiye haddana waxay sameeyeen barnaamijyo runtii shaqo abuur loogu sameeyay dhalinyarta hadday tahay dowladda oo shaqaale aad u badan qortay iyadoo wasiirka shaqagelinta iyo hogaamiyaha shaqaaluhu ay joogaan ayaan haddana ilaa maanta la gaarsiisanayn heerka aynu u baahnayn iyadoo taa laga duulaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sameeyey sanduuqa dhalinyarta isagoo lacagta ugu horeysay lagu shubay maantana siyaasadii iyo xeerkii lagu dhaqi lahaa la doonayo in la soo saaro ay iskana kaashan doonaan hay'adaha caalamiga ee dhalinyarta ku tacalluqa ganacsatada Somaliland oo filayay doorkooda inay ka qaataan iyadoo waxaas oo dhan jiraan ayaa haddana maanta dhalinyarta ku dhowdu ay dadaal badan ay sameeyeen keentay in halkaas soo horay dhalinyarta oo samaysay oo iyagu shaqo abuur iyagoo shaqooyin sameeyay bulshada iyo dhalinyartii kalena shaqo u sameeyay taas waxay tusaysaa haddaan qofku maskaxdiisa ka shaqaysiiyo dadaalo oo isagu mas'uuliyadiisa saaro oo aanu fadhiisan in isagu quldiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa wax ku soo kordhin doono sidoo kale aynu maanta wada ognahay in ay xukuumaddan ay ka go'an tahay inay dhalinyarta doorkooda siyaasadeed ay siiso maantooda waxaan tirinayay waraan 13 agaasime wasaaradaha aynu ognahay intii tiradooda 13 agaasime ay yihiin dhalinyar wasiirada halkan fadhiya iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo mas'uuliyiin aad u fara badan ayaa maanta qaybka xukuumadda markaa leeytid sida xukuumadda doorkooda siyaasadeed u siisay waxay muujinaysaa dhiirigelin u tahay dhalinyartu inay doorkooda qaataan iyadoo aynu maqal jirnay dhalinyartu waa mustaqbalkii berrito ayaa xukuumaddana waxay ka dhigtay madaxdii maanta oo muujinaysa sida madaxweynaha xukuumadda uga go'an tahay inay dhalinyarada dhiirigeliso dhinaca ay tahay shaqo abuur dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca isdhexgalba aad iyo aad bay runtii u mahadsantihiin waan mar kale waan bogaadinayaa mas'uuliyiinta iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaarahana waxaa ka go'an inay doorka qaadato aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.